barnaamijka xogta Bollywoodka toddobaadkan waxaan ku soo gudbinaynaa sida uu filimku ku noqdo darajooyinka kala duwan ee flop, average, semi hit, hit, super hit, blockbuster ama all time blockbuster. dad badan oo xiiseeya aflaamta badi waxay isweydiinayaan su'aalo badan oo ku saabsan sababta uu filimku u noqdo mid guuldareysta flop ama hela natiijooyin ka hooseeya ama ka sarreeya. natiijada filimka waa wax quseeya ganacsi ee ma ahan hadba sida uu filimku adiga kuula fiican yahay ama kuula xun yahay, mana laga fiirin doono haddii uu dadka raaligeliyey iyo haddii aysan badankood ku qancin. haddaba waxaan doonaynaa inaan wax badan idinka ogeysiino waxyaabaha sababi kara in filimku noqdo natiijo ahaan flop, average, semi hit, hit, super hit, blockbuster ama all time blockbuster. waxaan rajaynaynaa in sharaxaadan ay noqoto mid aad wax badan ku fahanto isla markaana kaa bedeli karta fikir aad horey uga haysatay sheekadan. waxaa laga yaabaa inaad ku wareerto sababta filimka Action Jackson ee uu hogaamiyaha ka yahay Ajay Devgan uu noqday filim guuldareystay flop isagoo keenay lacag dhan 60 karoor, halka filimka Dum Lage Kehaisha uu hogaamiyaha ka yahay Ayushmann Khurrana isna uu keenay 28 karoor isla markaana uu ku noqday filim hit ah oo guuleystay. haddaba aan fiirino fahamka guud iyo sharaxaadda ku saabsan qodobkan aan arartiisa soo akhriyay ee ku saabsan natiijooyinka aflaamta Bollywoodka. marka ugu horeysa qarash gareeya ama producer waxaa loogu yeeraa qofka maalgelinaya filimka, shaqaalaha ka shaqeeya hadduu ahaan lahaa director, jilayaal, dadka sheekada qora, muusigiiste, heesaa iyo wixii la mid ah. qarash gareeyaha ayaa bixiya lacag walba oo ku baxda filimka, xitaa qarashka ku baxa safarada, cuntada iyo jiifka wuxuuna noqon karaa shakhsi ama shirkad. marka labaad, haddii filimka la dhammaystiro oo uu diyaar u yahay in tiyaatarada la saaro, qarash gareeyaha mararka qaar filimka wuxuu ka iibiyaa shakhsiyaad kale ama shirkad kale. inta badan qarash gareeye marka uu filimka iska iibinayo lacagta uu filimka geliyey ka badan ayuu ku iibiyaa, wuxuuna hadafkiisu yahay inay u soo laabato lacagtii uu geliyey. tusaale, markaan fiirino filimka Jai Ho oo uu hogaamiyaha ka yahay Salman Khan, waxaa qarash gareeyay Sohail Khan, balse Sohail marka uu filimkiisa diyaar u ahaa in la saaro tiyaatarada wuxuu ka iibiyey shirkadda Eros. waa sababta keentay in Jai Ho aan lacaga badan laga helin maadaama qaali looga iibiyey shirkadda Euros. haddii Sohail Khan uusan filimkiisa ka iibin lahayn shirkadda Euros, waxa uu noqon lahaa filim blockbuster ah oo gaara guulo waaweyn. marka saddexaad, haddii qarash gareeyaha uu filimkiisa ka iibiyey shirkad kale, mararka qaar si toos ah filimka uma qaybiso, waayo shakhsiyaad kale ayaa ka iibsada kuwaas oo filimka gobolada u qaybiya, waxaana loo yaqaanaa distributors. distributorska waxa ay filimka ka sii iibiyaan shakhsiyaadka tiyaatarada iska leh oo loo yaqaano exhibitors, waxaana macquul ah inay lacago qaaliya uga sii iibiyaan. haddaba filimka tiyaatarka la saaro waxa uu soo maray 4 gacan oo kala ah qarash gareeye, shirkadda filimka xuquuqdiisa la wareegtay, shakhsiyaadka canjiladaha gobolada u qaybiya iyo shakhsiyaadka iskala tiyaatarada. sidaa daraaddeed dhammaan dadka filimka ku lugta leh ee qarashaadka geliyey haddii lacagtooda ay dib u heli waayaan, filimku waxa uu noqonayaa flop. haddii uu dib u soo celiyo qarashaadkii la geliyey oo dhan, waxa uu noqonayaa filimka average. haddii laga helo faa'iido, waxa uu noqonayaa hit ama wax ka sii badan. tusaale ahaan aan ku dabaqno filimka Tefar ee uu hogaamiyaha ka yahay Arjun Kapoor, kaas oo bilowgii 2015 soo baxay iyo sababtii uu flop ku noqday. waxaan ognahay in filimka Tefar uu keenay lacag dhan 34 karoor balse lagu qarash gareeyay 60 karoor, taasi oo ka dhigan in filimku uu noqdo mid guuldareysta ama flop. haddaba aan fiirino sida uu filimku ku noqday mid flop ah. filimkan waxaa qarash gareeye ka ahaa Boni Kapoor. filimka Tefar waxaa qarash ahaan markaasi gashay lacag dhan 30 ilaa 35 karoor markii ugu horeysay uu qarash gareeye Boni Kapoor lacag ku bixiyo. markii uu filimka diyaar u ahaa in tiyaatarada la saaro ayuu ka iibiyey shirkadda Eros International, kana siiyey lacag dhan 48 karoor, waxayna shirkaddan aaminsaneyd in filimkan uu guul weyn gaari doono. shirkadda Eros International markii ay Tefar gacanta ku dhigeen xuquuqdiisa, waxaa qarashaad ay ku bixiyeen 12 karoor oo dheeri ah si loogu sameeyo xayeysiin iyo suuqgeyn, taasi oo ka dhigtay in shirkaddan ay qarashka guud ku bixisay uu noqdo 60 karoor.
kahor inta aan Tafar la saarin tiyaatarada shirkadda Eros International waxaa u soo laabatay lacag dhan 18 karoor oo ay ka heleen heesaha filimkan oo gadmay iyo xuquuqda satellite-ka oo ay iska iibiyeen iyo waxyaabo kale sidaa daraadeed maalintii Tafar tiyaatarada la saaray filimkan waxaa laga rabay inuu keeno 42 karoor si shirkadda Euros lacagteeda u hesho waayo 60 karoor ayuu ugu fadhiyaa filimkan kahor inta aysan 18 karoor soo ceshan laakiin taas macnaheedu ma ahan in haddii 42 karoor uu keeno ama box office-ka uu ka soo xareeyo uu yahay mid hid ah isla markaana macaash laga helay waayo shirkadda Euros waxay filimka ku wareejisay dad qaybiya oo distributors ah sidoo kale waxaa lagu sii wareejiyay dadka tiyaatarada iska leh oo loo yaqaan exhibitors sidaa daraadeed filimka Tafar 84 karoor haddii uu keeni lahaa ayuu noqon lahaa filim guuleystay waayo lacagta qayb ka mid ah waxaa qaybsanaya dadka tiyaatarada iska leh iyo dadka canjaladaha qaybiyaan halka qaybta kale 42 karoor ay qaadanayso shirkadda Euros laakiin nasiib xumo Tafar guud ahaan waxa uu keenay 34 karoor qayb ka mid ah waxaa qaatay dadka filimada qaybiya iyo kuwa tiyaatarada iska leh waxaana shirkadda Euros u soo hartay 17 karoor oo kaliya maadaama 42 karoor qarash ah ay ka sugayeen inuu ka soo laabto balka waran haddii 17 karoor ay heleen waxaa Euros ka luntay lacag lagu sheegay 25 karoor haddaba filimka Tafar aan ku dabaqna mar kale sida filimku uu ku noqon karo flop average hit super hit blockbuster ama all time blockbuster waxa uu ku noqon karay haddii uu keeni lahaa 175 karoor iyo wixii ka badan blockbuster waxa uu ku noqon lahaa haddii uu keeni lahaa 140 karoor iyo wixii ka badan super hit waxa uu ku noqon lahaa haddii uu keeni lahaa 110 karoor ama wixii ka badan hit waxa uu ku noqon lahaa haddii uu keeni lahaa 90 karoor iyo wax ka badan average waxa uu ku noqon lahaa haddii uu keeni lahaa 70 karoor iyo wax ka badan flopna waxa uu ku noqon lahaa haddii uu keeni lahaa 50 karoor iyo waxa ka hooseeya sidaa darteed 34 ayuu keenay waxaana uu noqday mid flop ah haddii filimka Tafar uusan Boni Kapoor iska iibin lahayn wuxuu noqon lahaa filim guuleysto laakiin Boni filimka waxa uu ka iibiyay shirkadda Euros oo uu ka siiyay lacag qaali ah taasoo keentay dib u dhac ku yimid in filimku uu guulo gaaro ugu dambeyntii sharaxaadda guud ee sheekadan ay xambaarsan tahay waxay tahay in natiijada filimka ay ku xiran tahay hadba faa'iidada laga helo filim walba oo qaab wacan loo jilay ma guuleysan karo balse filim walba oo lacagihii lagu sameeyay in ka badan laga helay iyadoo 4 marxaladood ee aan soo sheegnay la marayo ayaa la dhihi karaa waa mid guuleystay fadlan subscribe dheh channelka SOL si aad u hesho muuqaalo badan oo dhinacyo badan taabanaya sidoo kale riix calaamada gambalaalka si muuqaal walba oo la soo dhigo si gaar ah lagugu soo sheego